وحقيقة تهاي أن سريجو هذا عبد الرحمن هذا تلي إذا كسلوت الصوماليات وحياة كلا لكن ضدكوا أي kugu jecelihiin ama ay kula baxeen mudooyinkii dambe kamid aha markaad baydhabo joogtay hal eray baa laga hayay muqdisho hal eray laga hayay oo aanay sahan maanta ku baxday sida hadii aan ku sheego kula kaftamo in landheer aad dhahday shub aad dhahday sideed u aragtaa warka horta waa af Soomaali hal u jeedoon leey laakiin hadal waa mirgi Allah qofba qalba dhinac qofba u jeedin kara marka taydiyaan ka warrama aniga u jeedadeediyaan ka warrama nin mas'uula yaa wuxuu ii soo diray masjid buu ii soo qoray markaas xil ma haynin laakiin jago saruu gaaray wasiir uu noqday masjid ii qoray wuxuu ugu yiri shaqada meesha aad ka wadid ka wad landheera tahay halka ka wadu yiri saasuu ii soo qoray inta markuu ii soo qoray waan akhriyay waa arkay wax kala ma dhihin waa wacay waa mahadsantaan wuxuu sameeyay markaas dalka Nairobi jooga dalka uu ka maqay marka ka beel ahaan yaa waxay u sameeyeen waa siga dadka abaabulay ka mid yahay buuqay magaalada ka sameeyeen magaalada buuq ka sameeyeen dhagax tuural bilaab taayira la gubay mudaharaad la sameeyay buuqay ciyaala la kiciyay waxa la kiciyay magaaladii oo dhan baa madoobaad marka kiibaan fariin u farahay aan ku iri aniga waxaan haystaa 1,000 askari kunna hadda la isoo wadaa waa 2,000 anoo intaas haysto shabaabna waa ku tuhmaya meeshan inuu ku jiriya waa buuqan waana ku jiraa waa huba waaba ku jiraaba oo waxaan buuq magaalada ka wado guriya burburinayo baabuur boob miiskan boob taayir gub yani maskaxda ka weyn ninkaasna waa ku tuhmaya meesha marka waxaan iri anoo intaas haystaaba geedkii ka noogsanay aadaaro adiga hadaad landheera tahay ma dad shabaabka naga burisidaan ujeedadeeda horta intay ku wajahanay jawaabta ninkaas iyo nacayb shabaab oo shaqadan waxba isku soo beegmay saasan kelmadda u iri ana landheera ma dhihin marka qoladan wax rogrogto oo ka mid tihiin way rogrogeen oo ninkii landheeraan ay buu yiri inta ka keentay aad ima weydiin landheera ninkaas keenay inuusan landheera ahayn waxba ahayn waa tusaay macni waa ka saan maray marka nabadgelyadii khatar galiyeen aniguna nabadgelyada aan xil saarnaa marka isla markaas haddana wuxuu fidiyay dad badan buu laayay 35 qof kii waa ila soco iyo kuwa la mid ah marka wala qaadatay marka kii wadanka laga eriyay uu ka mid yahay hasa marka sheekada saasay erayga hadda lagu jecel muqdishana isaga labtiidna wadada in buu hayaa toos waay leex male laakiin dada iska rogrogi karo askaraan qoranaynay taliskii aad sheegtaan joognay meesha ciidanka lagu xareeyay amaraan bixiyay waxaan iri ciidankaas hal la qoro intaas tira la eg qaabkaana loo qoro hal lagu keeno dadka waa fahamteen da'da sharuudahay ku jirtaa da'da 18 ah 18 25 oo 30 ka hooseeyo usan qofka ka weynaanin waxay inta ka weyn askari ma noqon karaan inuu ilaa iyo lug la iyo gacan la ayana lama ogolo sharciga qoritaanka askariga aan ogolaynba waxa walba sharciga leeyin ma ogtahay askariga qorata gacan ka goon adin intee geeyni ma sharciga basaase adina hadda waad ogtahay marka meeshii baa dadkii lagu qoray lagu xareeyay dad oo hadda inta bala yaa yimid oga meeshii soo galay oo laga helay qoladii aan la dardaarmayn qoladayday ayaan la dardaarmahay waxa inta laga rabaana waa u sheegay ina ayaga nooc hadda ay yihiin askari laga qoray ina waa u sheegay si shuba adinka saasay ku timid
kelmadda saasay ku timi wax barbaleem oo kale cid gaara aan ugu xumaynayo ma jirin waa qayliyeen oo waxay dhaheen waa rogrogteeno waxay dhaheen waxbaba kuma leh nin jiisay nin ilaa ay dalka wax kuma leh ani dalka oo dhan mas-uul kama yihi ma ogtahay dalka dad kalaa xukumo shuqul ku leh curyaamiinta kaalay wasaaradahan dhan idinkaa ka shaqeeya waa dhihi karaan laakiin curyaan askari looma qori karo ujeeddadeyda waa inta tan waxay bay rogrogeen waa i weydiiyeen SN TV a i su-aashay waa u sheegay kuwii horey u joogay oo dalka u dhaawacmay u jiisoobay oo u curyaamay oo asluubna ahaa ma ahana ari kuwa aan ka hadlay kuwa jadiid oo hadda la qoraayo waay